adduunkeennu waa meel ku habboon nolosha ibni'aadamka. ilaahayna uu abuuray in lagu nagaado. laakiin markaad cirka kor u eegto waxaad isweydiinaysaa sidee buu meelahan aynu ku noolnahay uga mid noqday kownkan. sidee buu ku yimid kownkan aynu arkaynaa? ka warran haddii aannu taariikhda dunidan oo dhan kaaga warranno. waxaan kuu sheegaynaa qisadan oo dhammaystiran laga soo bilaabo qarxii ilaa iyo wakhtiga aynu joogno. sidee kownkan u samaysmay? sidee bay magaalooyinkii yaryaaraa u noqdeen magaalooyin waaweyn xadaarad leh oo ay ku nool yihiin dad idinka oo kale ah? sidee bay wax walba isugu xidhan yihiin kuuguna soo hoggaaminayaan waxa imika taagan? waxay ku qaadatay dhismaha ama samaysanka kownkan 13 bilyan oo sannadood inay ku noqdo sidaynu hadda arkayno. wax kasta oo aad u baahan tahay waxaannu ku tusi doonaa 15 bilyan soo socda. muddo badan ka hor ayay bini'aadamku isku dayeen inay wax ka ogaadaan kownka. tani waa xaaladdu ku sugnaa kownku markuu wakhtigu ahaa eber ama bilow. xaaladdani waa xaaladday ka yimaadeen wax kastoo hadda aynu naqaano, hadday tahay borotoronno, niyutroonno, xidigo, galaxies iyo wakhtiga laftiisa. kownku wuxuu leegaa wakhtigaas dhumuc ahaan iyo xaddi ahaanba dhibicda qalinkaagu uu samaynayo oo kale. dhibicda gudaheeda waxaa ku jiray oo camiray awood iyo tamar aan qiyaas lahayn. tamartaas aadka u badani waxay keentay inay isciriirido oo iscaabiso, waana sababta keentay qarax aad u weyn oo bilow u ah dhismihii kownkan. kownkeenu wuxuu ka bilaabmay xaalad leeg dhibic oo kale oo aad u yar oy buuxiyeen energy aad u badan oo iscaabinaysa. tamarta aadka u badan ee iscaabinaysa ayaa waxay keentay inuu sameeyo kownkeenu qarax boom. qaraxa uu sameeyey kadib waxaa samaysmay in waan ognahay markasta uu qarax dhaco waxa ka samaysma waa dabkaasi samaysmay halba mar ka dambaysa uu sii qaboojinay. qabowga uu sii qaboojinay ayaa waxa samaysmay xidigaha meerayaasha iyo starska aan naqaano iyo sidoo kale galaxiga. ilaahayna wuxuu quraankiisa inoogu sheegay oo aayad quraan ku yiri awalam yara alladina kafaru anna samawati wal ard kaanataa ratqan fafataqnaahuma. oo ka dhigan haddii aad imika isleedahay qaraxan uu dunidu ka samaysantay wax qariib ay kula tahay, sidee u dhici kartaa ay kula tahay? ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegaya adoo waxaad isleedahay sidee u dhici kartaa inuu koonku ku sameysmay qarax, laakiin ilaahay sidoo quraanka noogu sheegay kelmad ratqi noo tilmaamaysa wax isku dhegsan, fatqina waxa noo tilmaamaysa wax kala go'ay. sidaa darteed ayaa ay culimada islaamku ee saynis yahanadii u soo daliishadaan aayadan iyagoo ku qeexaya qaraxan weyn ee dhacay ee lagu tilmaamo big bang loo yaqaano. qaraxa weyn kadib markuu dhacay waxa samaysmay oo mar ka dambeysay samaysmay xidigaha iyo ilaa iyo markii uu dambeeyay uu samaysmay solar systemkeena cadceedda iyo dhulka ay naqaano hadda. sida wax kasta oo qaraxa u sameeyo olol kuleyl wata ayuu qaraxanina u watay olol iyo kuleyl. kulaylkana ilbiriqsiyo gudahood ayuu ku bilaabay inuu isku qaboojiyo oo u bilaabo qabow sida wax kasta oo u gubta ilbiriqsiyo gudahood u qaboobo. kownkani waxa uu u bilaabmay si aayar ah. intaasi dabadeed waxaa samaysmay ama dhismay xidigaha galaxiska, borotoronada iyo niyutroonada. saddex boqol oo milyan oo sano kadib Big Bang, gravity-gu wuxuu isku keenay dhaskii iyo hadhaagii qaraxa, waxaana ka dhashay pressure saa'id ah iyo kulayl. markuu temperature-ku gaadhay 800 oo milyan oo Fahrenheit, atomadii hydrogen-ta ayaa isku tegay iyagoo sameynaya
curiyayaal cusub. Helium, xidigii u horeeyey ayaa samaysmay. Iminka waxaa jira bilyanis xidigood, laakiin wax ayaa dhiman weli. Waxa dhiman meerayaashii. Si ay meerayaashu u samaysmaan kadib nolosha bani'aadamku ku bilaabanto, waa inay jiraan curiyayaal ka badan helium iyo hydrogen oo keliya. Dhowr milyan oo sano kadib samaysankii xidigaha, waxay bilaabeen inay sameeyaan qarax. Qaraxaasi waxa uu keenay energy badan oo jaanis siinaya samaysanka curiyayaal waaweyn. Geedigii samaysanka dhulkeenu wuxuu ka bilaamayaa bartan. Inta aynaan iman hoygeenu, waa inuu inoo diyaar noqdaa. Si aad guri u dhisto, waxaad u baahan tahay dhammaan alaabtii gurigaas ka samaysmi lahaa. Iminka curiyayaal badan ayaa jira oo ay meerayaashu ka samaysmi karaan. Xidig cusub ayaa samaysantay. Xidigtaasi waa cadceeddeena. Waxay haysataa 99.9 boqolkiiba gaasiska iyo dhaska solar systemkeena, laakiin waxaa la heli karaa in ku filan samaysanka meerayaasha kale. Ka saddexaad ee samaysmaana wuxuu noqon doonaa hoygeena. Cadceeddii u horeysay ee soo baxda waxay ku sababtay macdantii dhulka dhalaal. Dhulku waxa uu u wareegayaa xilligan si aada. Haddii ay maalintii oo dhan lagu qiyaasay inuu yahay 6 saac oo keliya. Dhulka guudkiisu waxa uu ahaa dhagxaan dhalaalaya oo durduraya. Waxaa loo baahan yahay hadda wax joojiya durduradan ololka ah. Taasina waa gravity-ga. Waxyaabihii fududaa waxay tageen dusha iyagoo samaynaya surface adag. Waxyaabihii culusaana waxay u degeen hoosta iyagoo noqonaya dhagxaan dhalaalay. Tani waxay abuurtay xalqad magnet ah oo u baxsan dhulka guudkiisa. Xalqadan magnetka waxay ka ilaalinaysaa dhulka fallaadhaha qorraxda ee khatarta ah, tilmaamaysana inay dhulka hadda nolol ka bilaami karto. Laakiin haddana si ay noloshu u bilaabanto, dhulku waxa uu u baahan yahay lamaane weheliya. 4.5 bilyan sano ka hor, dhagax size Mars-ka le'eg ayaa ku dhacay dhulka. Dhagaxa intiisii badnayd dhulka ayay gashay, laakiin jajab ayaa ka soo hadhay ka dhashay isku dhacoogii. Jajabkaasi waxaa isu keenay gravity-ga. Halkaasna waxaa ka samaysmay dayaxeena. Dayaxu wuxuu ka dhigaa dhulka mid taagan oo dhaqaaq aan samaynayn, taasoo ka dhigaysa mid nolosha ku habboon. Sidoo kale, isku dhacii dayaxu ka samaysmay waxay dhulka ku sababtay inuu dhan u qalloocdo. Qalloocaasina wuxuu sababay xilliyada oo muhiim u ah
nolosha dhulka. garaafitiga dayaxa iyo dhulka ka dhexeeyana wuxuu keenay inuu xawaarihii ama wareegga dhulka hoos u dhigo. taasina waxay keentay in saacadihii maalintu dheeraadaan. maa banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun. qur-aanka ama hadalka rabbi subxaanahu wa tacaala waa waxa ugu runta badan leh ee kownka uu ilaahay abuuray ka dhex jira, waana waxa keliyaynu ku rumaysan karno wax kasta oo dhaca. sida uu ilaahay inoo sheegay, kownku waxa uu ku sugan yahay xaalad kala bixitaana ama fiditaana intii uu markii hore ahaana uu ka fidayo ama uu ka ballaadhanayo. xidigaha laftigoodu bilowgii adduunkan ama bilowgii kownkan waxay ahaayeen qaar jaara oo isku dhowdhow, laakiin dhaqdhaqaaqii kownka ayaa u sababay inay sameeyaan fiditaan ama kala bax iyaga oo ka guuray xaaladii jaarnimada ahayd. ilaahay qur-aankiisa waxau inoogu sheegay wakullun fii falakin yusbaxuun. wax kasta oo adduunka ka jira waxay ku sugan yihiin dhaqaaq ama socod. xadiga ama leekaanshaha uu kownku leegyahay maaha wax haddii aynu sawirano, maaha wax niyaddeena kusoo dhici kara, laakiin waa wax ballaadhan. waayo qaraxii adduunkan ka dhacay sababtana u ahaa dhismihiisa waxaa laga joogaa 13 bilyan oo sano. maalintaa wixii ka dambeeyey kownku wax kasta oo dul yaalla waxa uu bilaabay kala bax ilaa uu noqday wax aad u ballaadhan. marka meeraheena ama dhulkeena la dhaafo waxaa la gelayaa xaalad mugdi ah oo ka duwan tan aan naqaano. waxaa lagu qiyaasaa gaalagsiyada la ogaaday ama la garan karo 100 bilyan oo galaksi. 100 bilyan ee galaksi oo mid kastaaba uu ku jiro 100 bilyan oo meere ama xidigood. gaalagsigeena waxaa la dhahaa Milky Way Galaxy. Milky Way Galaxy waxaa ku jira tirooyin badan oo xidiga ah oo inagu weheliya solar systemkeena. solar system ama nidaamka cadceeddu waxay ka kooban yihiin 8 meere iyo cadceedda. sanadu markay ahayd 1931 ayaa loo aqoonsaday meeraha Pluto inuu ka mid yahay meerayaasha, balse muddo 75 sanadood dabadeed oo ku beegnayd taariikhdu markay ahayd 2006 ayaa koox saynis yahani ka fadhiisteen naaqisheen isla markaana isla garteen inaanu meeraha Pluto aanu meelnaba ka soo galay meerayaasha kadib markii laga waayay astaamihii meerayaasha kale lagu garan jiray. waxa xusid mudan in 8 meere soo haray dhamaantood ku wareegaan cadceedda, iyadoo mid kastaaba dhulka meerahan ku nool lahay dhulka cadceedda iyo dayaxaba masaafo cayiman ay u jirto sidan oo kale. qaraxii dhacay hadda waxaa laga joogaa 13 bilyan oo sano. haddaba waxaa isweydiin mudan oo aan hubaa inay maskaxdaada ka guuxayso su-aasha ah sidee lagu ogaaday da'da kownkan ama inta uu jiray kownkan. waxaa lagu ogaaday iyada oo la baadhayo xidigihii u horreeyey ee samaysma, iyada oo la qiyaasayo fiditaanka ama kala baxa kownkan. bal ka fikir inta uu leekaan karo meerahan aynu ku noolnahay. waxaanu shaki ku jirin inuu meerahani ka wan yahay wax kasta oo niyadaada ku soo dhaca. bal ka waran haddii ay jiraan meerayaal ka waaweyni meerahan aynu ku noolnahay. meerayaashaasi ay ka mid yihiin bilyanis meere. bilyaniskaa meerana ay dhex muquuranayaan bilyanis galaxies. qorshahaygu wuxuu inaanu tagnay spaceka ama kownkan aan iminka dhex taaganahay. ee adiga maxaa kuu qorshay? run ahaanta cadceeddu aad bay u kulushay.